kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa isku mari waayay kadib markii ay kala baxeen barbaro 1-1 kulanka lugta koowaad wareegga afarta koobka Del Rey ay ku kala ciyaareen garoonka Camp Nou. qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu soo kalnastay 1-0 ay hogaaminaysay kooxda Real Madrid. daqiiqadii lixaad ee ciyaarta Lucas Vazquez ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Real Madrid wuxuuna ka dhigay ciyaarta 1-0 kadib caawin uu ka helay Karim Benzema. qaybtii labaad ee ciyaarta markii la isku soo laabtay labada kooxood ayaa si taxaddar leh u ciyaarayay iyadoo Barca ay isku dayeysay inay dhaliso goolkii barbaraha ah. daqiiqadii 18aad da'yarka reer Brazil Malcom ayaa ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1. jawiga garoonka Camp Nou ayaa noqday mid xamaasaysan kadib markii uu bedel kusoo qaliyay Lionel Messi. ugu dambeyn ciyaarta ayaa kusoo idlaatay barbaro ay labada kooxood ay ku kala baxeen waxaana kulanka lagu go'aamin doonaa kulanka lugta labaad ee ka dhici doona garoonka Santiago Bernabeu. halkan waa Somali Media Group. subscribe